waxaan ku salaamayaa dhammaantiin salaamta islaamka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ku soo dhaweyno garabkii haweenka ee xisbiga kulmiye oo hore xafiiskoodii iyo iyagii baa ugu soo wareegeen maxaan ku idhaahdaa xisbiga mucaaradka ah ee wadani maantana halkan ku qabsaday xafladaasoo nasiib wanaag annaguna aanu kala soo qayb galay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa annagoo ku hadlayna weliba anigu aan ku hadlayo magaca maxaan ku idhaahdaa guud ee xisbiga waan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa mar koowaad iyo mar labaadba waxaan leeyahay ku soo dhawaada xisbiga isbedel doonka iyo cadaaladda iyo dulqaadka iyo sinaanta ee wadani ku soo dhawaada maanta markaan intaa ka gudbo waxaan filayaa inaad xisbigan ugu soo digarogateen oo ugu soo biirteen inaad soo bideen cadaalad inaad soo bideen horumar inaad soo bideen waxqabad annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaanu wax alla wixii horumar ah ee deegaanka ah ee dalka iyo dadka ah inaanu idiin raadinno idiin doonno inaanaan noqon kuwa fekerka ka soo xambaara hargeysa ee aanu noqonno kuwa idinla wadaaga waxa aad doonaysaan waan ballan qaadaynaa oo aanaan odhan annagu ma odhan doonno annagaa hargeysa ka nimi waxaanu idiin keenaabaa ku khasban tihiin idinma odhanayno laakiin waxaanu idin weydiinaynaa maxaa ka dhiman degaankeenna maxaa horumara maxaad u baahan tihiin waxaad moodaa anigu imika muddo fara badan waxaan isduwa kahaa gobolka saraar caafimaadka gobolka saraar wuxuu marayaa halka ay marayaan gobollada kale ee waaweyn degmada garadag baan eegay caafimaadkeeda waxay leedahay dhowr iyo 10 tuulo oo waaweyn oo ay ku nool yihiin population aad u fara badan mid walba waxay leedahay iskuulkii mar hadday meeshaas iskuul leedahay waxay xaq u leedahay inay hesho health boss ama MCA meel aan garadag ahayn oo leh ma jirto waayaan daro weyn garadag waxay halkii lagu doortay xisbiga kulmiye aasaaskii bay ahayd wax alla wax horumar oo ka jiraan ma jiraan waxaad arkaysaan oo hortiinna markhaati madoon ah hersiboosyadiinnii iyo iskuulladiinnii iyo horumarkiinnii waxay galeen shakhsiyaad qof waliba wuxuu wataa hal hersiboos ama iskuul shakhsi baa loo wataa wixiinii gaadiid baa loo wataa bilaayaa loo wataa waxaydan garanayn baa loo wataa waxa weeye dantii guud waa laga tegey waa inaad ku baraarugtaan war mee hersibooska yagii mee hersibooski meel hebla mee hersiyajkii meel hebla mee waxbarashadayadii horumarkii mee waxaad noqon doontaan kuwa u hiiliya horumarka kuwa u hiiliya waxqabadka kuwa u hiiliya danta guud kuwa u hiiliya cidda doonaysa isbeddelka iyo horumarkaa noqon doontaan insha allahu tacaala annaguna waa idin ballan qaadaynaa waxaan ballan qaadaynaa haddii uu xisbiga wadani dee guulaysto insha allahu tacaala waan rajaynayna inuu guulaystee in la baabi'iyo musuq maasuqa in la baabi'iyo baan ballan qaadaynaa waxaad arkaysaan dadkiinnii oo baahan oo xoolii ka baxeen oo abaaraysan baa meel walba ka buuxa haddana waxaad arkaysaan oo marag madoonta ah oo aanu indhahayaga ku soo aragnay waxaad arkaysaa qof 12 kaadh leh iyo qof aan waxba qaadan waa cadaalad darro weyn waa wax laga muraaro dilaaco waa wax xildhibaanadu uga soo wareegeen xisbiga kulmiye oo kuwii aad doorateen waxay arkeen cadaalad darro arkeen waxay arkeen cadaalad darro ka socota xagga guud hadday noqoto national levelka gobol ahaan degmo ahaan wuxuu way iswadaa cadaalad darrada haddii aan qofka guud waxba ka qabanayn ka hoosena waxba kama qaban karo waa xidhiidh weeye cadaalad darrada cadaalad darro xidhiidha waxba lagama qaban karo waa silsilad haddii silsiladda aan la goyna waxaa wax laga qaban karaa ma jiro deegaankeenuna wuxuu ku dhici doonaa mid aan horumar lahayn waxaad arki doontaan berito xisbiga kulmiye oo ku ololeynaya waddada berito hadday iyagu qabsadaan waxay odhan doonaan waxaanu samaynay waddadii ceergaabo waxaanu darajadii ka bedelay ciidamadii
waxaasaan waxa la wixii wax qabad ahaa Siinaaya qabtay ayay barina ku faani doonaan laakiin xisbiga wadani kuma faanaye wuxuu keeni doonaa inuu halkii Siinaaya dhigay ka sii kordhiyo oo ka horumariyo keenay marka aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa xildhibaanada aad baan ugu mahad celinaynaa haweenweynaha ku soo biiray xisbiga wadani iyo dhalinyarada iyo dadka reer Garadag ee samaha iyo wanaaga jecel ee gacmo isqabsiga jecel waan soo dhaweynaynaa waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ka fogaataan eexda inaad ka fogaataan cadaalad darrada inaad ka fogaataan qabyaaladda inaad ka fogaataan oo aydan taageerin musuqmaasuqa إن شاء الله تعالى قول بنا نرجع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته